si kor loogu qaado aqoontooda iyo xirfadooda waxbarasho ayaa sanad kasta ardada fasalada saddexaad, labaad iyo koowaad ee dugsiga sare ee Gambool ee magaalada Garowe loo qabtaa tartankan oo ka kooban aqoonta iyo waliba ciyaaraha fudud. Haddaba natiijada tartankan iyo sida uu u dhacay waxa sharaxaya Axmed Beere oo ah gudoomiyaha tartamaadka ee dugsiga sare ee Gambool. marka hore waxa ay soo maraan is-arag tartan badan baa soo dhex maray. waxa championka Form 1 ka soo qaaday Form 1D, Form 2 way soo arkeen tartan dheer ay soo dhex maray. kadib waxa horyaalkooda soo qaaday 2F, Form 3 way soo tartameen ayagana waxa soo qaaday galaas la yiraahdo 3C Science. waxayna guushu saan u jeedna halka ku raacday galaaska 2F. in sidoo kale uu barbar socday tartamo kala duwan oo ah Olympic tartamada fudud 3 iyo 4 baa isugu yimid finalka. guushuna waxay ku raacday galaas Form 3 ah. qaar ka mid ah ardada ku guuleysatay tartamada kala duwan iyo waliba kuwa laga guuleystay ayaa iyana dhankooda cabiraya dareenkooda ku aadan tartamaadka. bismillaahir rahmaanir rahiim. Aniga magacaygu waa Maxamed Cabdirasaaq Cabdi, waxaan ahay tartamayaasha fasalka 2F baan la soo tartamay maanta. waxaan leeyahay guusha labana kama wada qasmiso. waxaan ku faraxsanahay inay anaga raacdo mar walbana labada guulood dad walba waa raadinayeen, laakiin insha Allah taala aniga nasiibku saacido baan waxaan yiraahdo baa qaadayay. reer Gambool baa isla nahay, waa wada badinay tartankuna wuxuu hadii marba tartan la dhaho tartan qof un baa guusha qaadaya. Form 2F baa qaaday guusha, anaguna Form 1D baan nahay, fasalkii Form 1 soo facay baan last game baa isugu imaanay. hadii naga qaadayna xumaan ma aragna, waa walaahay ilahay macallimiintana waa mahad celin. maamulaha dugsiga sare ee Gambool ee magaalada Garowe Cali Ibraahim Xuseen ayaa ugu dambeyntii ardada tartamaadka ku guuleysatay abaalmarino kala duwan siiyay, kuwaas oo ay ka mid tahay agabka ciyaaraha fudud. Maxamed Salax SBC Garowe.